falkastoo dhaca waxa uu leeyahay falcelin la awoodiye xaddiba leh. jaantuskan waxay nagu soo qeexeen fasalladii lagu qaadan jiray fiisigiska, balse ruushku waxa uu astaystay falcelin jaad gooniya leh kadib duqayntii Ukraine ay ku furisay ciidankiisa ku sugan jasiirad lamooda Crimea. waxa lagama maarmaan noqotay in ruushku jawaab culus u diro Ukrainiyiinta. ma waxa uu u ruqaansan doonaa halka iyo caasimadda Kiev, mise waxa uu laba jibaari doonaa duulaanka baan ee uu ku hayo bariga Ukraine, ama satan ugu arxanka daran ayuu fulin doonaa marka la gaadho xilliga jiilaalkii oo reer Yurub iyo Ukrainiyiinta ayuu u horseedi doonaa inay ku qombabaan dhaxanta daran ee soo socota. waa haddii uu goosto gebi ahaanba gaasta uu u dhoofiyo waddamadaasi. miyay NATO kordhin kartaa baritaarka ay la garab taagan tahay xukuumadda Ukraine si ay iskaga dhigto geesiga kaliya ee hiil iyo hooba la garab taagan cidda ay isku haybta yihiin? muxuu yahay nakiiska saamaynta ku leh xaaladda cakran ee jirta loona aanaynayo ra'iisul wasaaraha dalka Vilane Sanna Marin? dowladda Ruushka oo la dhafoor taabtay. intii uu socday dagaalka Ukraine Ruushka, dowlado badan oo reer Yurub ayaa aaminsanaa inuusan dagaalku sii daba dheeraanayn, diibka Ruushkuna xamili karin culeysyada dhaqaale burbur ee waddankiisa dul hoganaya. natiijada ka dhalatay cunaqabataynta xad-dhaafka ee boodada jabin karta xukuumadda Putin. balse xaalad gadiska cusub iyo dhererka dagaalku waxa uu niyad jabiyey saadaashii reer Yurub ku taamayeen, isagoo dhulka la dhacay dhaqaalihii Yurub kalifaynayn madax badan ay jagooyinkooda iskaga yaacaan. khalkhal ku yimi suuqyada waaweyn iyo qiimihii lagu gadanayay maciishada oo halkii ugu sarreysay gaadhay. burbur dhaqaale oo qaaradda gabowday ku dhaca waxa ugu dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. madaxda dalalka Yurubna waxay isku casilayaan si jumladaysan, amase waxay waayeen taageeradii bulshada soo dooratay. masiibadan ku habsatay dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee Yurub waxa sabab u ah dagaalka Ukraine Ruushka. waxa uu ahaa madaxdii sida weyn uga soo horjeeday siyaasadda Putin, waxaanu khudbadiisa iscasilaadda ku caddeeyey in meel looga soo wada jeesto colka ugu yeedhay argagixisada cusub ee adduunka. Johnson doodiisu waxay u muuqatay midaan joogtada waxba ka tari karin oo sii burburinaysa dhaqaalaha ragaadismay ee reer Yurub. taas ayaana ku kaliftay inuu iskaga firdhado xukunka inta aanu ku eed yeelan. dhanka kale waxaa laba goor iscasilay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Mario Draghi kadib markii uu madaxweynaha dalku ku gacan saydhay warqadii xilburintiisa. Draghi ayaa soo bandhigay mashruuc lagaga gaashaaman karo balanbalka dhaqaale ee qaaradda haysta, waxaanu soo dejiyeen cashuur dheeriya laga qaado jeebooyinta maalgelisa Talyaaniga, taasoo noqotay fikrad aan cidina taageerayn. madaxda iyagoo kursigooda ku faraadeegay waxay waayeen shacbiyaddii ay ku lahaayeen bulshada. madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu ka hakraday inuu go'aano masiiriya ka gaadho xaaladda jirta. maalmihii u dambeeyey banaanbaxyo laga soo horjeeda ayaa ka socday magaalooyinka waaweyn, ayna hogaaminayso haweeneyda xisbiga midigta fog ee Marine Le Pen oo ku guuldarraysatay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee Faransiiska. ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz kama uu nasiib roonayn madaxweynaha Faransiiska, waxaana lagu hayaa cadaadisyo dheeriya kadib markii shirkadda gaaska Brom ee Ruushku ay ku dhawaaqdeen xawiisyada Nord Stream 1 ee gaasta u gudbiyay reer Yurub 20% hoos loo dhigi doono xaddigii maalinla ahaa. dhawaanna waxay gebi ahaanba joojisay gaastaas iyadoo cudurdaar uga dhigaysa in dib u habayn ku socoto. isbeddelka cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay qaaradda, waxaana Yurub ka cabanaysaa abaaro ba'an oo horseeday in webiyadii gureen. dadyowgii hore Jarmalka dhagaxaan ay ku aaseen webiyadaas ayaa soo muuqday qaleyl dartiis, waxaanay aaminsan yihiin haddii dhagaxaantaasi soo baxaan inay masiibo ku habsanayso dhulkooda. ra'iisul wasaaraha dalka Finland Sanna Marin ayaa dhiiggeeda laga baadhayaa maandooriyayaasha kadib markii meel fagaaraa lagu arkay iyadoo miir leh oo dad badan ka dhex ciyaaraysa. khubarada siyaasadda ka faalowda ayaa ku tilmaamay arrintan in dagaalka Ukraine Ruushka uu horseedi doono isbeddel xidideed oo siyaasadda adduunka, iyagoo ka deeriyay in anshaxii iyo habdhaqankii madaxdu uu dhulka jiitamayo. inkastoo uu Ruushku gacanta ku hayo isha korontada soo saartay ee aagga Zaporizhzhia, haddana waxa uu Ukraine ku eedeeyay inay duqaysay warshadda ugu weyn ee tamarta korontada u gudbisa reer Yurub. taasina waxay ku riixdeen madaxweynaha Faransiiska uu la xidhiidho dhiggiisa Ruushka, kana codsado in koox culimaa loo diro Zaporizhzhia si ay u soo indhayndeeyaan khasaaraha gaadhay warshadda. jawaabtii Putin ayaa noqotay mid aan qancin Faransiiska, waxaanu Ruushku ku adkaystay inuu ilaaliyo xogta khaaska ee warshadda. Mareykanka ayaa ku bixiyay nafaqooyinkii ugu badnaa ee hub ah dagaalka Ukraine, $775 milyan oo hubka noocyadiisa kala duwan ayuu u diray xukuumadda Kiev. gantaalada ridada dheer leh, burburiyayaasha kaarayaasha, diyaaradaha basaaska ee iskood isku wada iyo hub kalo badan. saxaafadda New York Times ayaa qortay maqaal ay ku eedeynayso kaalinta wadamada Yurub ugu jiraan Ukraine, waxaana diiradda saartay inay ka hamradeen badbaadinta iyo taageerada Ukrainiyiinta.
ciidamada ruushka ayaa hore u xamaaranaya halka kuwa Ukraine uu gaabis yahay difaacoodu taageerada adduunka ee meesha looga saarayo duulaanka ruushka had iyo habeenba way socotaa wargeysku waxa uu intaasi ku daray sababta uu Putin u fulin waayay howlgalkii ugu magac daray cadaabta wax leefaysa howlgalkan ayaa bartilmaameedkiisu ahaa inuu muddo kooban ku qabsado caasimadda Kiev ruushka ayaa qarmeeyay dadweynaha reer Ukraine ee ku dhaqan deegaanada ay gacanta ku hayaan saadaalinta duulaanka ruushka ayaa lagu mijixiray inuu la maragsanayo dhaxanta jiilaalka reer Yurub si ay cimiladu ugu adeegto danihiisa juqraafi siyaasiga xoogagga Ukraine ayaa dhawaan baabiiyay saanadii ciidanka badda ruushka ee ku sugan jasiiradda Crimea iyagoo la dhacay gantaalo tayeysan iyo miinooyin ay ugu aaseen badda madow Ukraine ayaa sidoo kale ku hanjabtay inay dhulka la simi doonto buundada isku xidha ruushka iyo jasiiradda Crimea Ukraine ayaa filisay howlgallo ay ku wiiqday awoodda ruushka ee aagga Donbass balse aan soo bandhigin khasaare ay geysteen inta uu leeyahay waxaana lagu asteeyay inay uga dan leedahay siyaasadda isku baalmarinayso hagardaamada ruushka ee daran si kastoo ay ahaataba dagaalku waxa uu gaadhay heerkii ugu xasaasiga badnaa daahana laga rogi lahaa cidda ku gacan sarreynaysa aagagan lagu loolamayo haddaba daawada maxay tahay isa seeganaanta ka jirta siyaasadda dagaalka mise ma isleedahay ruushka ayaa awoodda ugu badan yeelan karaa haddii la gaadho xilliga jiilaalkii faalladaada xagga hoose nugu reeb naguna soo biir haddii aad nagu cusub tahay